channel ka daawanayso waa Nuruddin official please haddaan uga cusubtaa subscribe like share maanta waxaa ka bixi doonaa heestii ugu saameynta 2020 heestaas waxay ahayd Jerusalem waa hees aad iyo aad looga daba dhacayo ka sheekeeyay midnimada ummadda carabta amba masaajidka barakeysan laga heesto calaasha muslimiinta dhammaan heestaas waxaa qaaday maslax waa wiil Soomaali waa baraha bulshada aad u qabsatay heestaas waa tan iyadoo muuqaala The time we should rise for the glory of Jerusalem. Jerusalem is the time we should rise for the glory of Jerusalem. Is the time we should rise for the glory of Jerusalem. وويل Soomaali aad iyo aad comment u leh calaashan u leh hibo waa dadkii waaweynaa waxay garan waayeen inuu katay Jerusalem my home. hees aad iyo aad looga daba dhacay please haddaan uga socodtaa subscribe waa kaasa maslax waa wiil Soomaali aad iyo aad comment u leh calaashan u leh hibo waa dadkii waaweynaa waxay garan waayeen inuu katay maasha Allah waa kaasa heestan waa heestii ugu saameynta badan oo ugu sanadkii 20 la soo dhaaf sanadkii 2020 ugu saameynta badneed oo ugu daawashada badan oo calaashan hees xaqiiqada ka hadlayso waay حقيقة ما هن علشان قفنا للدفرة فلسطين ودبنتها عربتي لوجيه استان ويل Soomaali ذو جامعة عربت كتر Soomaali ذو هني جامعة عربت كتر سنتها لكن كردقا ما هن إنه كهذا أدي هذا وصلوا هنا Soomaali ذا علشان كرايجي تنوى قراء الناس فتح دارالسلام فلسطين يا فساد ما يقوم فعلا فتح دارالسلام في الناوي دحلي ما يمر بافورا فتح دارالسلام في سن ما يفعل حمى ضفوشاني فتح دارالسلام فرالكو اللي فاري بفافيون نورتين اوفيشال شير كراي لا كراي كوميدي نوع مهم دمان